عربة عربت الدجنة ترى بدني جارهان لبا قبيل بيو بدناين عرب غير مضرة وعربتي حجاز كتمي يمن إيو عربت قيسين تلو يقانو غير شامها وحكلو جوجي بربركة وقبائل أدو ترى بدنا وحكلو جوجي قبائل مدد لو يقانا السقالبة السقالبة دو علماء التاريخ دad كان السقالبة دا كشيغان وحويان صدح قيبات بالله قيبية سقالبة دا كويد هذا سقالبة دا قلباتك هو بولنديين تي تشيك يا سلوفاكيين تي كواسي كوا الله يقانا سقالبة الشرق هو روسيا الكبار يا أوكرانيين تا أما روسيا الصغار وبيلاروسيين تا يا وحلميدا هي سقالبة الجنوب كوا يوروب تا كونفرنت كوا جوجا dadkan intooda badan waxa ay dad wadanka Jarmalku intuu duulo oo caruurtoodii waxooda soo qabqabsado iyo doonimo loo iibin jiray dabeetana mujtamac dhan sidii mamaaligtii attract ama Masar oo kala qabsatay dad noocaas ay noqdeen marka waa qabaayil tiro badan oo iyaguna wadanka degan markii ay dhacday in dawladda khilaafada ahayd ay baabaado ان لو سو غورو مجلس سياسي شورada ay culimada sameeyeen waxa dhacday in aan iyaguna xukumin magaalada intan ay magaalada joogan mooyane wadanka intiisa kale aanay xukum xoogan ku haynin sida daraadeed wadankii uu kala go'ay waxa soo baxay 22 dawladood oo cusub Andalus meel yar bay ahayd Andalus waxa lagu tilmaamay in ilaa 600 meelahaasi in ku dhow 600 kilomitir isku wareega inay tahay yani wadankii Soomaaliya 677 buu ahaa Soomaaliya in leeg rulahan marka la eego Soomaaliya oo 22 dawladood noqoto qiyaas reer waliba intii yareeyay oo haystay intuu goostay ayuu dawladda iclaansaday marka hore 7 qabiilo waaweyn bay u kala go'een Banu Abaad niman la yiraahdo oo Ishbiiliya iyo agagaarkeeda qabsaday niman Banu Ziri la yiraahdo oo qarnaata iyo agagaarkeeda qabsaday Banu Jahwar oo qaadigeenu ka waramaynay oo isagu Qurtuba iyo manaatiqda ku xeeran qabsaday Bani al-Aftas niman la yiraahdo Berberiyiina oo iyaguna qabsaday Batlios magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow Bani Dhanun nimanka la yiraahdo oo qabsaday Tulaytila Toledo magaaladan la yiraahdo iyo inta u dhow Bani Amir nimanka la yiraahdo oo iyagu qabsaday Valencia ama Valencia meeshan la yiraahdo Banu Hud oo yana qabsaday Sarqasta ama Saragoza magaalada la yiraahdo iyo inta u dhow waa Spain tan yare arkaysan ee Portugiiskan intan oo 22 dawladood loo qaybiyay Portugiiska iyo Spain oo la isku daray oo waliba qaybta sare oo dhan Lyon iyo maxaa la yiraahdaa Qishtaala iyo qaybtan Barcelona Aragon dawladda loo oran jiray intaasina dawladda kale Kristaan ay ka sameeyeen intii ka hooseysay ee muslimiintu haysteen ayaa waxa loo kala qaybiyay 22 dawladood taasi waxa soo baxday markaasi qabiil wal ama reer yaro waliba intuu meel qabsaday ayuu dawlad ku sheegay meel yaro kasto dawlad lagu sheegay waxa loo sameystay nin madaxweynaha oo amiirul mu'miniin sheegta ومقالة وحايستا وانا لقب كلا إذا أمير المؤمنين بو هايستا عيدا بو ليي وزير رو ليي العقب ضابع ديقارة رسمي قيمة دحتو يدي سوكو يالو سفير رو ليي ودرتو نوا اللي بد دولة وحي أي شيء شرطوردن أيو شاكتي دبتنا وحي نقدين دولة ير ولا بيا لبعتنا والله بيا لبعتنا كوبا يعليهين oo mid waliba walaalkiisa ugu dhow ee muslimka uu iska eegayo si walaalkiisa u dhow muslimka ugu xoogaystana dawladaha gaalada markaasi ka xoog waaweyn mid kamida uu dabada saaray ama se uu ku tiirsan yahay taasi waxay keensatay in gabayaagii la oran jiray al-Hasan ibn Rashiid sidoo Imam Dhahabi siyarkiisa jiska 17aad safxada 144aad ku soo naqlinayo inuu gabayo yiraahdo mimma yuzahiduni fi ardi andalusa سماع معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد يعني قبياغا سي مسلم كابا وحلي وحيابها أن وقت جيب أندلس وحا كم دبولي
dhulka andalus waxaan uga tagay magacyadan tirada badan leh muctasim iyo muctadid المعتصم بالله المعتضم بالله المرتضي بالله المؤيد بالله mid waliba laqabkii madaxtooyadu lahaan jirtay buu la baxay waxaan ka fogaaday waxa kamida buu yiri magacyada tirada badan leh ay nimankaas la baxeen wa alqabu mamlakatin fi ghayri mawdi'aha bulay wa magacyo dawladeed oo aan laakiin meel dawladi joogto loo bixinin kalhirri yahki intifakhan sawlat al-asadi بعض الروايات نصورة الأسد بينها وسيدي بيجي أن على هذا عرّي جير كاللي بحس ككعية عرّي هدو جير سككعية دي اللي بحنا قرن ما يوم وبصدقون أنت جير كسككعيسي جير اللي بحسوه كيسي بيلا مدين يعني الدولة ده معها وحب لما وقت كان وحي تاريخ الله قانه عصر ملوك الطوائف أفر بقول يلا بيا لبعتنكي إلا أفر بقول يسدحي سديتكي بالسعودي فربقول بيا لبعتن لا فربقول سدحي سديتكي ووقت إلا بحين مركب ملوك الطوائف ملوك الطوائف قيبها إنه صار شيء لبعتنا يدا كل دو وحيعان كنا قضين كو ضد طرف جعل بيها يعني معيشتي ودناد ولا عجستي يعني معيشتي ولا جوجستي دبعتنا وحين نقدين بيلين ضد تمشى هسا بريس يباستيه وحلا عنون لقى شقيه عنون لقى ورمه مجتمع نوعه وقريبين نقدين بيلين ومر لبعده وحين نقدين مجتمع دويلات يريرة الدولة ولبع علك وجوينا إلى ذي كان يرى كلاو شاركا الرير هبلا ما شيء يرى هيستان وحصاب حيبيد هذا المنكرات كي يدبوا صار نقدي يفسوقي وحيل لمده وحيابا كوفاش حلا ساكرين وحكم النقدي دولة ولبع سي أجر تو كون يرير كمدي waxay dhabar ka saartay dawlad ka mid ah dawladii gaalada ee roona ama iyaga ka xoog badnaa markaasi ayay mid waliba dhabar ka saartay waxyaabaha ka sii foosho xun la meesha tan ka soo baxay waxa ka mid ah dawladaha yaryar intooda badani waxay bixin jireen jizya si ay u jiraan yani waxa taariikhda ku daraasayn jirteen dawlad islaamiga jizya qaada kuwan iyaga jizya bixin jiray waxaana la siin jiray maliku qishtaala iyo boqorada kale u dhow ayaa jizya ka qaadi jiray duwalkan yaryar sanad walba waa cashuurta ku soo dalaciya lacagta laga rabo inay soo diraan intii hore laga badinayo iyadoo la leeyahay waxa la ilaalinayaa nabadgelyadaada iyo dadkaaga iyo mujtamacaaga lagu ilaalinaya waxay soo baxeen boqorro yaryar markaa nin waliba meeshiisa sidii u xejisto un dawlad weyn oo gaaleed ku tirsay iyadana intuu lacag siiyo uu yiraahdo kuwan kale ama magaalo iga qaad ama igu yara durki ama aan kan magaalo ka soo qaato waxa la isku hayo dhamina waa magaalo aan kan riixdiyo magaalo kaas ay iga riixdo حد بيقعد ابن حزم